halkani waa BBC London Afrikada bari saacaddu waa 9kii fiidnimo oo buura ah. fiid wanaagsan idinkiin baa khiyaarta dhageysanaysa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin bawa habeen sabti oo ay xadiiso galayso bisha Oktoobarna waa 28 sanadka 2017. qodobada aan barnaamijka idinku hayana waxa ka mid ah laba qarax oo waaweyn oo ka dhacay magaalada Muqdisho iyo kooxaha gurmadka degdeg ah oo gaaray meeshii si degdeg ahna waliba u gaaray. qaraxyadan caawa ayaa dhacay 2 toddobaad kadib qaraxii weynaa ee lagu hoobtay iska Soobe ee isla Muqdisho. waxaad kale oo aad maqli doontaan shirka madaxda Soomaaliya oo ku wada hadlayaan berito Axadda oo dabcan xaaladda amni ee dalku uu ka mid noqon doono ajandaha iyo waa London oo uu gabagabo marayo toddobaadkii Soomaalida. wararkii cayaaraha ayaad iyagana dabcan maqli doontaan. cabdinuur sheekh maxamed isaxaaq ayaa barnaamijka isku soo dubariday, aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa idila socodsiinaya haddii ilaahay idmo caawa iyo caalamka. marka hore se wararka BBC-da ayaynu ku bilaabaynaa. waxaa inoo haya aadan maxamed cabdi saalamiin. aadan mahadsanid cabdixaafid. qaraxyo waaweyn ayaa waxay ka dhaceen magaalada Muqdisho, kuwaasi oo dhaliyey uuro weyn iyo qiic cirka isku shareeray magaalada korkeeda. qaraxa koowaad ayaa waxaa loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa la soo saaray, kaasi oo ka dhacay bannaanka hotel Naasa Hablotu, kaas oo ay ku sugnaayeen saraakiil iyo ciidamada dowladda. al-shabaab ayaa waxay sheegteen inay ka dambeeyeen weerarkaasi, iyadoo maleeshiyada al-shabaab ahina ay ka dagaalamayeen gudaha hoteelka. labaatan daqiiqo kadib ayaa qaraxii labaad oo xooggan waxa uu ka dhacay meel dibadda ka ah baarlamaankii hore ee Shabeelle. wararkii ugu horreeyey ee laga soo xigtay booliiska ayaa waxay sheegayaan in la xaqiijiyey ugu yaraan 7 qof inay ku dhinteen, in badan oo kalena ay ku dhaawacmeen. qaraxyadan ayaa waxa ay dhacayaan 2 toddobaad kadib weerarkii loo isticmaalay qaraxii weyne ee ka dhacay iska Soobe ee magaalada Muqdisho, kaasi oo ay ku dhinteen dad ka badan 350 oo dowladduna ay ku eedaysay qaraxaasi inay ka dambeeyeen al-shabaab. madaxda maamul goboleedyada ayaa waxay isugu imaanayaan ay ku soo ururayaan magaalada Muqdisho kulan ay maalinta berri ah la yeelanayaan dowladda si ay isugu raacaan istiraatiijiyad midaysan oo lagula dagaalamo al-shabaab. hogaamiyihii la eryey ee Catalan ayaa waxa uu bixiyey jawaab diidma taasoo ku saabsan in gobolkaasi ay la wareegayso dowladda Spain, isagoo ku baaqay isqacaabin dimuqraadiyadeed. hadal uu telefishinka ka jeediyey Carles Puigdemont ayaa waxa uu ku eedeeyey Madrid duulaan, waxaana uu ballan ku qaaday inuu sii wadayo dhismaha dal xor ah. dowladda dhexe ayaa xilkii ka qaaday Mr. Puigdemont iyo taliyihii booliska Catalonia, iyagoona kala diray baarlamaanka gobolka kadib markii ay ku tilmaantay ku dhawaaqista madax bannaanida mid sharci darro ah. magaalada Madrid 10,000 oo qof oo ruuxaya calanka Spain ayaa waxa ay qabteen isku soo bax kuwaas oo ku baaqayay midnimo. qaarkoodna waxay ku eedeeyeen hogaamiyaha Catalonia inuu yahay nin qaa'inul wadana. dareenka dhinaca kale dadka qaarkood ee iyagu madax bannaanida taageersan ayaa sidan ahaa. waxaan raacsanahay madax bannaanida. waxaannu gaadhnay heer aanaan oggolayn in dibna loogu tunto. ma aha xaalad kama dambaysa, laakiin wax kale oo aannu samayno ayaan naloo bannayn. uma arko Rajoy inuu cidna ra'iisul wasaare u yahay, sababta oo ah marna dhinacayaga ma raacin. uma aqoonsani inuu yahay ra'iisul wasaare. wasiirka gaashaandhigga ee Britain ayaa waxa uu amray in maraakiibta boqortooyada ay qasab tahay in lagu sameeyo tijaabo dhinaca maandooriyaha ah oo dhammaan dadka saaran maraakiibtaasi gujiska ah, kadib markii 9 xubnood oo markabka nukliyeerka ee Vigilant saarnaa lagu eriyey inay si sharci darro u isticmaaleen maandooriyaha cocaine. Vigilant waxa uu ka mid yahay 4 gujis oo qaada gantaalaha Trident ee nukliyeerka xambaara.
warku waxa uu intaasi ku darayaa in ciidanka badda ee markabkaasi saarna ay ku guuldaraysteen tijaabada maandooriyahaasi lagu sameeyey. Afhayeen u hadlay militariga ayaa waxa uu sheegay in sidoo kale ay baaritaan ku samaynayaan shaqaalaha kale ee markabka Vigilant ee eedeymaha ku saabsan inay xiriir aan habboonayn ay sameeyeen. wararka ka imaanaya Brazil ayaa waxay sheegayaan in rag hubaysan ay dab qabadsiiyaan tiro xafiisyo ah oo ay leeyihiin wakaaladda ilaalinta deegaanka ee kaymaha Amazon maalmo kadib markii howlgal lagu fuliyey ka hortagga macdanta sharci darrada ah. goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen 100 qof oo ay hogaaminayaan kuwa macdanta soo saara inay qabsadeen oo ay gubeen guryo ay lahaayeen 3 hay-adood oo federaalku leeyihiin oo ku yaala magaalada Humaita ee galbeedka Brazil. madaxa waaxda Amazon ee macdanta deegaanka ee Brazil ayaa waxa uu sheegay in xafiisyadoodii iyo kaydkoodii la burburiyey, waxaana uu sheegay weerarku inuu ahaa jawaab toos ah oo looga bixinayay howlgalka militari ee Brazil iyo wakaaladda deegaanku ay ka qaadeen macdanta sharci darrada ee webiga Madeira. ugu dambeyntiina madaxweynaha Masar Cabdilfataax al-Siisi ayaa waxa uu magacaabay taliye cusub oo militari toddobaad kadib markii tiro xubnaha ciidamada ammaanka la dilay kadib markii maleeshiyada hubaysan ay ku weerareen koonfurta magaalada Qaahira. dikaraata madaxweynaha ayuu wuxuu ku magacaabay General Maxamed Fariid Hagazi oo noqonaya taliyaha cusub ee ciidamada, iyadoo taliyihii xilka laga qaadayna loo magacaabay la taliyaha Mr. Siisi ee xalinta mashaakilaadka. weerarkii toddobaadkii hore ayaa waxa uu ahaa kii ugu xumaa ee ciidamada nabadgelyada dhibaato loogu geysto dagaal ay muddo dheer uga soo horjeedeen weerarada jihaadiyiinta ee waqooyiga Sinai. warkii oo intaasi ku eeg aan dib u kiciliyo Cabdixaafid. aad ayuu u mahadsan yahay aadan maxamed cabdi saalaamiin oo inala socodsiinayay wararka BBC da barta Facebooka ayaad dhegaystaan. sidoo kale toos noogala socotaan iminkana u diyaar garooba idaacadda qaybaha inooga hadhay. halkani waa London. sidii aad warka ku maqlayseen dad ayaa ku dhintay, kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen 2 qarax oo culculus oo Muqdisho ka dhacay maqribkii caawa. qaraxyadan waxay dhacayaan 2 toddobaad kadib markii xasuuqii ugu xumaa uu ka dhacay Muqdisho oo ay ku dhinteen ilaa 400 oo qof, tiro ka badanna ay ku dhaawacantay, iyadoo ay jiraan dad kale oo aan ilaa iyo hadda geeri iyo nolol midna lagu helin. haddaba 2 qarax ee caawa Muqdisho ka dhacay magaalada inteeda badan waa laga dareemay, waxaana nooga warramaya wariyaha BBC da Ibraahim Maxamed Aadan oo iminka khadka toos ugu jira. Ibraahim. cabdi xaafid, saacadan aan hadlayno weli waxa ay isku horimaadyo ka socdaan hotelka Naasa Hablood 2, halkaasoo gelinkii dambe ay weerareen xubno ka tirsan al-shabaab. weerarkaasi wuxuu ku bilowday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo ilinka hotelka lagu dhuftay, dabadeedna rag hubaysan ayaa gudaha hotelka u galay sida ay sheegeen ila ku dhowdhow saraakiisha ammaanka. muddo 40 daqiiqo kadib isla aagaasi goob ku dhow qarax kale oo weyn ayaa laga maqlay. saraakiisha gurmadka degdega ah ee gawaarida ambulasta ee goobtaasi gaaray waxay sheegeen in ugu yaraantii 17 dhaawac ah ay halkaasi ka qaadeen. ilo kale oo ku dhow saraakiisha ammaanku waxay sheegeen in ugu yaraatii 10 qof ilaa hadda la ogyahay in ay ku dhinteen weerarkii galabta ka dhacay hotelka Naasa Hablood 2. dadka dhintay waxaa ka mid ah sida ay ilo kala duwan BBC da u xaqiijiyeen sarkaal ka tirsan booliska iyo sidoo kale nin horey u ahaan jiray xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee ciidamada ammaanka ayaa hadda hotelka aagiisa oo dhan ku sugan. gudahana waxaa mararka qaarkood laga maqlayaa qaraxyo iyo rasaas ay iswadaarsanayeen ciidamada ammaanka iyo rag loo malaynaya inay ka tirsan yihiin al-shabaab oo ahaa kuwii weerarka soo qaaday. xaaladdu hadda waxaad moodaa inay weli aanay kala cadayn, inkastoo mararka qaarkood aad moodaysa xaaladdu inay degtay, laakiin haddana mar kale waxaa la maqlayaa rasaas halkaasi ka dhacaysa. al-shabaab ayaa sheegatay weerarkan, waxay sheegtay in bartilmaameed ku ahaa hotel Naasa Hablood 2 oo ay sheegeen in uu martigeliyo xubno ka tirsan saraakiisha ammaanka, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka. sidoo kale waxay sheegeen shabaab warka ay ku qoreen bogagooda internetka ee taageera in hotelkaasi uu leeyahay wasiirka amniga, laakiin ilaa hadda taas cabdi xaafid caddeyn uma hayno marka laga reebo sheegashada al-shabaab. xaaladda waxaad moodaa in aanay weli kala caddeyn cabdi xafiid, oo mararka qaarkood rasaas la maqlayo, qaraxyo la maqlayo. qaraxani wuxuu imaanayaa 2 toddobaad kadib markii dad ku dhow 400 oo qof ay ku dhinteen weerar isqarxin aha oo ka dhacay isgoyska Soobe 14kii bishan. dad 50 qof ka maqan ay
konton qof ka badan ayaa ilaa hadda lagu leeyahay qaraxaasi dhaawacyaduna dhowr boqol ayay gaarayaan oo dalka dibadiisa ayaa loo kala qaaday marka xaaladda caawa magaalada muqdisho waxaad moodaa in xale iyo habeen hore iyo ay ka duwan tahay oo dadku ay dhagaha u taagayaan waxaa ka dhacaya hotelka naasaha blotuur naasaha blotuur wuxuu ku yaalaa halkii ay ku ooli jirtay safaaradii shiinaha waa meel aan sidaa uga sii fogeyn hotelkii caanka ahaa ee shabeelle ee bartamaha caasimadda waa hagaag ibraahim aad ayaad u mahadsan tahay wariyaha b b c da ee magaalada muqdisho ibraahim maxamed aadan oo khadka toos ugu jiray ayuu kaasi ahaa haddaba arrimaha amniga ayaa ugu waaweyn qodobada la filayo in lagaga hadlo kulanka muqdisho bari ee xad ah uga furmaya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo isku haya arrimo kala duwan khilaafka madaxda sida uu saamaynta duruufaha dalka ayaa waxaa cilmi baadhis ka sameeyey oo warbixin ka qoray maxadka daraasaadka siyaasadda ee soomaaliya agaasimaha maxadka cabdirashiid khaliif xaashi ayaa natiijada ka soo baxday daraasadii ay sameeyeen waxa uu uga warramay cabdi nuur sheekh maxamed isxaaq waxaa noo soo baxay dhowr arrimood kow dowladda iyada gaabis badan ay ka hortegi kartay daaweyni kartay inay samaysay oo dadkii xasan sheekh dowladdiisii maamul goboleedyadan waa soo dhiseen waa la soo foosheen waa ku dhibtoodeen 5 maamul goboleed bay keeneen dowladdan hadda jirtay waxaa laga rabay inay kuwaas kubciyaan oo isku dabiridaan oo u odeeyaan 5tiiba ka soo qaylisay taas marka waa arrin waxay ahayd laga hadlo waxaan kaloo aragnay in khaliijka oo isbaacsanaya ay nagula soo galgasheen iyaga isbaacsigoodii wixii dhex yaallay midda saddexaadna aan aragnay waxaa weeye dastuurkii macnaha usa caddayn oo dowladda federaalkaana awoodo siinahayo kuwa goboladana isla awoodii siinahayo aan wax u dhow siinahayo oo qolana 54 ku dhufanayso dastuurka qodobka ah ku dhufanayso afka ku celcelinayso qolana kan ka horeeyo 53 dastuurkaasna inuu marka keenayo waxyaaba badan usa caddayn oo dadkiisa isku haystaan qodobkaasna waa aragnay oo iyadana khilaafka salbu ku leeyahay adigu saddexdaas asal baa u ah iyagii oo dowladii oo ka gaabisay dadkii inay isku dabiridato maamul goboleedyada waqtigooda iska dhaqaajinayo oo dastuurkii u fasaxaya si iyaga la tahay ama ayaga duruufaha ku khasbaya inay iska dhaqaajiyaan carabtii oo nagu soo galgalatay iyo amnigii oo aad u liito oo dadkii la xasuuqayo aan dadka Soomaaliyeed duruufaha ku jiraan ama ha noqoto amniga ama noloshooda guud ha noqoto marka waxaan ku khasbanaanay inaan maaragtay aan runta sayna la ahayd aan soo horridno aan leenahay ka daaya gacmaha isqabsada dastuurka arrintiisa hal la galo dhibaatooyinkaas aad sheegtay guud ahaan waddanka ka taagan oo daraasada aad ku samayseen dhinacyadan ay khusayso ma isla garowsan yihiin mase qolo walba qumanahooda qoorta ugu jira horta ana wada hadallo waa heshiina weeye oo inay hadda muqdisho isugu yimaadaan maanta shirkiina bari u furmahayo madaxweynuhuna caasimad u diray ayaguna ay aqbaleen waxay muujinaysaa inay hadda ay muuqato inaan aysa kala aamusnaan karin taasaan marka waxaan hordhignay waxyaabaha loo baahan yahay in hoos loo daadego marka waa bilow fiican ma isleenahay inay isku yimaadeen oo inay wada hadlaan rabaan waana fiican tahay waana la daaheen waqti hore ahayd in waxyaabahan is-afganawaaga intii meel la saaro in danahooda waaweyn la galo hadda danihii waaweynaaba laguma dhex jire dadkii shaqada la qaban lahaaba faraha isku fiiqfiiqaay waa tahay ugu dambeyntii cabdirashiid adoo mahadsan maxaad ku soo jeediseen xal markaad aragteen khilaafka iyo dhinacyada iyo xaaladda waddan ku sugan yahay waxaan kusoo heshiinay inta siyaasada ku jirta oo ha noqoto maamul goboleedyada oo dalkii in badan oo kamid a mas-uulka ah iyo dowladda dhexe oo dalkii oo dhan mas-uulka ah iyo guud ahaan xildhibaanada siyaasada ku wada jira iyo inta siyaasada ku wada jira dalkan odayaasha iyo mas-uuliyaddu saaran tahay inay gartaan xilliga lagu jiro iyo duruufaha jira ayna si dhaba u heshiiyaan taas guud ahaan dadka siyaasada ku jiro dhan baan kula talinay dowladdana si gooni aan ugala talinay inay dadkan la heshiiso oo ay macnaha waxay tabanayaan ka daaweyso waxay haysana wax ka siiso oo ay maaragtay aysan ku khaldamin doorashooyinkii hore la doortay iyo taageerooyinkii hore ay heleen inaysa taas aysan ku sirmin dadkan waxa ay ka rabaanna wax ka siiso awoodda la wadaagto dhaqaalaha la wadaagto talada la wadaagto ay aruursato waa kula talinay siyaasiyiinta gobolada jooga iyo kuwa heerka qaran ama xamar jooga waxaan kula talinay inaysan dowlado kalena usoo gaashaan buursan ama dowlado kale aysa soo dhex marin oo dowladdan hadda jirta oo haddaba dhalatay curdanka aysa dumin oo ay u ogolaato dowladdan inay jirto shaqadii loogu talagalay ay qabsato guud ahaan waxaan kula talinay maamul goboleedyada iyo madaxda qaranka in dastuurka hawshiisa la galo oo waxyaabahan mugdiga keenaya iyo ismaandhaafka si degan oo weliba dad farsamo yaqaana oo waxaan sharciga yaqaana oo mustaqbalka dheerna ka fakarahaya hadda yaan wax la kala goosan keliya maahan mustaqbalka dheer ka fakaraya inay dastuurka arrintiisa galaan kadibna waxaan ku talinay markii la isqabsado gacmaha la isqabsado in hawlaha yaallo oo amni in la sugo oo dadkan ay noolaadaan oo duruufahooda laga shaqeeyo loo soo jeesto marka waqti badan baa in ka dhumay baan ku niri dowladda inaad usoo jeensataan hadda dadkan inta la aruuriyo in shaqadii taallay oo ama amni hala sugo ama dadkan Soomaaliyeed dowladda loo dhiso ama labada
2020 wixii lagu balansanaayo doorashaha loo gudbo waxyaabahaas ha loo soo jeesto oo baabkan ha la iska xiro khilaafkan waxaan ku sheegnay inuu yahay khilaaf macna darro ah aan loona baahnayn dawladuna ay ka hortagi kartay laakiin waqti badan oo